dabaylaha caafimaadka baryeeliyadeg inasho dalkayga maxaa u diiday haddii la dhahay 73% ka badan 35 ka yiriin oo haddii laga bilaabay kuwa 30 sano ilaa 60 sano jiro aabastuugin waxa la dhaw waxay ka bilaabataa 16 ilaa 64 inta function ka gelin yani dadkii haafa ka tagtay tii ugu dambeysay oo rabaan soo noqdaan hooyooyinka caruurta badan leh هذا الدنمارك وحي ربان إن الدمر كدينيشكا يلابا أما 3 أما 4 دولار إلا ووضن كود مسعوكو سو وحا أنك اسكو عينينو دولار ربان عروضتا بدنو لغا هدلاي دينيشكو يربي هاي استاج وحو ربا إنو دادك فاند جليو سيدي هويوك الدينيشكا عروض بدنو دولار هذا كان واسكو عينونا أنا محدودة أنا أصلا يرى نقطة صوت المرة كنا كده وجهها صوت أروح سواء إني سومالي الطمر كل بقى اللي يدور كل صورة شغالة تن محلي شري شيخين تجوا حساس كنت وحكم وجي لكن تن كلا أنا وعن أوجه هاي محلي شري كوار كنا عاود لي كغيرت مع أنا سومالي محلي شري طمر كل باسمها والطمر كمسلمين تورا تحسنا هذا يرون تتهاي ودين iyo xijaabka Soomaalidu xiran yihiin hadda maxay jiray in ka dumar badan soo sidoo doonayay inay shaqeeyaan oo xijaabkooda saas lagu qaadanayo waxaan hubaa in dumar badan rabaan inay suuqa shaqada galaan markaad wareysatid hadda siista ugu baan lahay maxay jiray shir aan ka hadlaynay waayo imika meel kasta waxa rabaa in lacag la geliyo si dumarka loo shaqaaleysiin lahaa gaar ahaan markii timi ay soo baxday klibkii hooyinka Soomaalida wadaysa marka maxay jiray marka la yiraahdo okay waxaan sida waxa soo istaagaysa yaa qaadanaya dumarka ay niraahna way shaqaysiinayna ay lacag badan heli geliyo laakiin yaa shaqaalaysiinaya gabar Soomaaliyeed xijaab oo xataa laga yaabo in luqaddu ku yara adag tahay marka iska daaba dadka luqaddu ku adag tahay hooyooyinka maxay jiray waaweyn dhalinyarada waxbarashooyinka dhameeyay baa meelahan buuxa oo aan shaqo heli karin waayo systematic maxay jiray discrimination ah baadeen ma ka jira qofka magaciisa la eegay markuu dalbado soo dhibaatooyin badan dhibaatooyin ka weyn tahay inay laba sheekh yiraahdaan qofka ma shaqayn karo maxay jiray waxa xaaraan ay muqaafis adigu Soomaalida dhibaatada muslimiinta dhibaatooyin ugu weyn la neeyo waxa weeyaan ma lagu shaqayn karaa wax gacan gaaban ama khamri ma laga shaqayn karaa waxa su'aalaha kala diinta soo noqnoqdo kuwaas laakiin runta marka loo dhaadhaco waxa weeyaan discrimination lagu jira Denmark taas iyaguna way ogyihiin marka aad ku orayso okay yani markastay weydeen waayo aniga bas aad deelin kartaa sayidka la Soomaali markii meel ahaan Soomaali sidaan u shaqaaleysiina waxaan ku ilaalaa haddaan ku keeno tawadu maro raba inay shaqeeyaan meel aad keensin ma haysaado marka yaa shaqaaleysiinay weeyaan biiqsooda qofka laga yaabo inay iyagu rabaan inay shaqeeyaan laakiin waa inay haystaan meel ay ka shaqeyn karaan so taas weeyaan problemka ugu weyn waxaan gelaynaa in yara shan واحد ما تقعد هاي وسينا يا أخو ترى يا إيه هذا بعضهم قلنا حوالي محل هذي واحد شيء بيسنس جورنال ده وقرر معلم دويد شيء يسوي مرة إن يتذكر أجنبي جو بدن كأيديا روي هنا شقيا وقري أو يكفي عين تتوقع على العادات محل كبتان صب محل ما إذا إن فعل كود شغال سمينا يعني حفتها أي خطر كويس أنا تاس واحد يلا بدل بشرين الله سبحانه وتعالى marka hore waxaan sheegay aniga in wax kasta marka lagu soo eedeeyo aad ku eedeysan tahay ilaa aad cadeyso wax ka duwan marka statisticada la soo saaro statistica cibir buu ogtahay waxaa loo sameeya for political purpose stiimla la sameeya waxaana samaysta ururada raba inay adiga mediaha ugu dacaydiyaan si codad loo helo laakiin annagana laga rabi inaan banaanka la nimaado dhahdo statisticadan waa qalad waxay ku qalad ku tahay saa iyo saa in statistic la xiriiro taas waa mid waxaa kaloo jirto sida jaamac sheegay qofka marka la xukumo qof Soomaali waxa laga yaabaa inuu qaad soo geliyo wadanka laysan oo lahayn laba jeer shaqeeyo qofka soma marka statistic waxa la soo waxa soo celis liidada dad soo ogol taas macquul ma 900 boqolkiiba inay Soomaali tilmaanta ayna ka dib badan tahay diirishka iyo dadka ajnabiga macquul ma laakiin statistic anaga maxaa ku tafacilaa taas tawreys kan xagga shaqo la'aanta dumar xaqiiqo jirto way dumarkeena shaqo la'aanta ku badan waxaa ka dhawaa Soomaaliya waa Islaamiya waxaa jira mar walba waxa la biski ku qod wada taqaanaan hadii qofka uusan haysan incentive oo shaqada ku tago shaqa ma tagay shaqada ku soo dhacay dadka family center loo keenay xitaa waxaan joogaa departmentiga oo integration ka shaqeeya waxaan u shaqeynaa wali elbo ana qof u qabsan waxay waa tahay marka dadka dumarka ama ragga aan loo keenay
hal qof oo loo joogo ma jiro kulli shaqo geliyo waayo waa fursad wada agtafeen oo ku qasbaya inuu shaqo galo sababtoo wax cayra maaha anigu hadda mikrofoonka waxaan u qabsaday si aan khalad layga fahmin hadalkii markii dhaweed aan hadlay gabdhaha haweenkaan wax yar ka sheegay kama noqonayo laakiin waan sii cadaynayaa sababtan hadalkaa weyn waxa weeye inagu uur ma qaadno dumarku uur bay qaadaan iyagaa dhala carruurta marka waxa laga yaabaa wadankan iyo qurbaha reer galbeedkana furiinku aad buu u batay anigu wax badan baan ogahay iimaan baan ahay anigu sir badan baa laga sheegtaan ogahay marka furiinku aad buu badan yahay marka gabadhi markay guursato ay 3 ciyaal ku dhasho waad ka tegaysaa waad ka dhaqaatinaysaa wala raggu kutigu ma soo eega macal ciyaalku wuxuu leeyahay qaadatay nabada gabadhi inta ma joogaysan ilaa haddana waa inay kala guursato kiina haddana is odhanayso fikirmayso odhanayso ciyaalkani waxaan intaasaa kugu filanay bal iska ilaali laba kale dhalaysaa 3 nin buu guursanaysaa todobadu saasay ku imanayaan marka waxa weeyaan taasi dhibaatay ku haysaa ciyaalka ujeedada islaamka معناها إسلام كمدي دنا إن عيالك لا حددوا إسلام كمدي دنا صحابة الرسول كأي حديد ترعبوت وسكيرين ليش أنا عيالك فرصته وأبونا الصبح شقتك وبدأ عيال كانت كنت عطه وحكى في عين طبعا عيال النشاط وسديد يشارك الجواب حسيحا سجل